wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo maanta warbaahinta kula hadlayay barxadda hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga Somaliland ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay isla markaana uu si adag uga jawaabay hadalla maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay maamul goboleedka Puntland kaasi oo ku saabsanaa markab hubsiday oo ku soo xidhay dekadda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil wasiir Cadami waxa uu sheegay in maamul goboleedka Puntland ay hilmaantay cilaaqaadkii jaarnimo iyo waliba tii walaaltinimo ee labada bulsho waxaanu sheegay in Somaliland ay markabkaasi qabatay isla markaana ay imaka hayso baaritaanana ay socdaan waxaanu sheegay in hadalkaasi ka soo yeedhay maamul goboleedka Puntland aanay waxba ka jirin waxaanu sheegay in markabkaasi ay ku qaadi doonaan qawaamiinta iyo shuruucda beesha caalamka uga meel yaala arrimaha badaha waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay hadalkaas waa hadal dabayshu soo qaaday oo halduuf ah oo aan meeshiisii ahayn oo ku gabood falaya xiriirka caadiga ah oo aan mid qoto dheer ba ahayn oo dadka dariska ah ka dhaxaya way waa mid ay caadaysatay in dhaweyd Puntland oo ma taliyayaal cusub baa yimi boqoradii cusub bayd ba isbandhigayso is iibinaysa wax loo daleeyahay garan mayne arrimaha qaar diblomaasiyadda ka mamnuuca baa jira waxa ka mamnuuca sida markabka la sheegayo markab hub ay sitabay qabatay Somaliland waa faan bay u tahay jiritaankeedii iyo inay badda ilaalinayso bay proof ka tahay caalamku dad wada caamaha la wada camayn karo ma aha caalamku oo dhan waa noogu bogaadinaya qoraal baa lagu soo bogaadiyay Somaliland qabatinka iyo markabka intiisa ciidan baa dul saaran hoos baa looga sii daadegaya hubka cidda baa la ogaanaya waxaan filayaa waliba malaha ninka hadlay xagga maritime-ka badda waxba kama yaqaan waan filayaa waa qorada xoolo raacatada ah baan filayaa inuu yahay arrintaasu cid iyadu tuug walba oo adduunka khatarihi isagii baa isxaday lama yidhaa adduunku xadaa oo duluu baabi'iya laakiin isagu isbaxdo hatta hadduu lacag jeebka ugu jirto jaxadi maayo waa miduu sharciyeystay Somaliland waxay ku faanaysaa ciidamadeeda badda iyo ciidamadeeda kale oo dhulka waxay ku amaanan yihiin in ay ogaadeen markab tuuga loogu talagalay oo badeecadiina la sareysiiyay meenadiina hoos la dhigay bay macadekada iyo maamulkeedu ku amaanan yahay tiibay ifka u soo saareen waa qisadii soo laba noqonaysa oo Lord Byron markabkii la oran jiray oo dekada Berbera sidaas la eeg daqiiq raashinkii ay bixin jireen oo ay siin loo inji ay fariqi jirtay oo gaarsiin jirtay dadka ba qaybna la soo raray qaybna lagu iibiyay badweynta kale waa la qabtay markabkii kabtankiina wuxuu ku dhintay Berbera markabkiina wuxuu ku dhintay Berbera oo ku aasayay labadiiba iska daasiiday la sii daayo tanna halkaas ay gaadhi ama kabtankiyo markabkaba waa la waayay ama xaqiiqadii runta abay sheegay hadda may sheegin oo lagu ogaanayo waxay tahay cilmiyan haday maritime wax ka garanayo ninka hadlayo hadalka loo dhiibtay arinta sharci gooniya bay badu leedahay sharci badeedkii baa la isla maraya maalin iyo labo iyo bil midda ku dhamaan mayso مثلا markaas xaqiiqadu iyadoo sideeda u maldahan u soo baxaysa dibadda geesta kalena Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland waxa uu dawladda Puntland u soo jeediyay inay ka waantowdo hadallada aan xaqiiqda ku salaysnayn waxaanu sidoo kale sharaxay qorshayaasha Somaliland uga meel yaala markabkani waxaana mar kale hadalladiisii ka mid ahaa waxa weeye tuhumad aanay qaadi karin oo u qalmin buu Somaliland dalada ka saaraysa Puntland مثلا وانا معامله حمي كينيسا هدوتو inaan waxba la isaga tudin bay keenaysaa mas'uulintooda iyo cidda meesha xukuntaba waxaan uga abiil garaynay war laga fiirsado ciidanka waa la yaqaan cidda lagu sheego hadii qolada la sheeg qolada ay hadda iyagu dilaysanayaan oo leeyihiin qoladaas xidhiid la leeyihiin cidda lagu xantaa way sogtaa Somaliland maaha mar alla meel ay xidhiid ka leeyihiin kuwa aanu ka qabanay baa ku xabsiga ku go'ay kuwa aanu ka qabanay baa maraakiibta loo dhiibay kuwa Somaliland ka qabatay baa halkii ugu daray loo celiyay oo loo gudbiyay la iskuma kaaya xanto
ceebtaad leedahay inaad qof kale saartaa waa ceeb labaad weeyaan marka waxaan leeyahay arrintaa baddana waxay noo kala markhaanti furi karaa adduunka badaha wax ka yaqaan iyo sharcigooda baa inoo kala marag furaya ciddii lana sheegaya haddaba kuwaa soo baxay warqada qortay oo leh Suudaan baan halkan aan wakiil ka nahay waxaa cid raacaysa ma jirto waa kambaniye international oo caalamiyan la yaqaan baa doodooda la qaadi karaa laakiin xafiis ka furtay suuq madow warkiisa anagu kuma aanu duulayno si kastaba ha ahaatee hadalkan maanta ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa ku soo beegmaya markii maalintii shalay ahayd ay dawladda Puntland sheegtay in Soomaaliland ay majar habaabinayso markabkan hubka siday ee ku soo xidhay dekedda magaalada Berbera isla markaana ay iyadu hubkan si sharci darro ah u soo iibsatay waxaase arrimahaasi maanta si adag ugu gacan sayray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa